barnaamijka qaybta ugu horeyso oo aan furanayno wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay yiraahdo in aan shuruucda ciyaaraha lagu maamulayo in la dul maro kooxii ayagoo joogo kadibna waxaan siin doonaa martida sharafka leh caawa halkan joogtay iyo odayaasha in ay maaragtay barnaamijkan ay wax ka yiraahdeen ayaga oo waqtiga ilaalinaya ugu dambeyntiina waxaan sameynaynaa haddii ilaahay yiraahdo qorisku Turkiga ayaan sameynaynaa barnaamijka oo dhan waxaan ugu talagalnay in uu ku soo gabagaboobo time yar haddii ilaahay yiraahdo marka wabillahi tawfiiq waxaan ugu horeyso u yeerayaa professor Togane ayaan u yeerayaa professor Togane inuu halka yimaado ayaan u yeerayaa professor Togane in uu xoogaa yar oo wacdi maadaama barnaamijkan aan bilaabanayno in maaragtay professor Togane uu noo yimaado kalaami ma dal khayrul kalaami ma qalla wa dalla rasuulkeeni baa yiri hadal waxa ugu khayr badan kan yar oo macno weyn leh inta badan waa laga wada hadlay riyaadada sida hadda ka horna aan u sheegnay waa waxa isu keeni kara ay Soomaalidu oo dhan heshiis ku tahay waa dad dhalinyaro ah oo Ilaahay qalbigooda uu ka tirtiray waxyaalaha dhibaatada Soomaalida inta badan u keenay annagu haddii aan Soomaalinahay shacabun waahid baan nahay Soomaalida kaliya ma aha ee Ilaahay wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu dhan ayaa walaalo ah Soomaalida adduunka oo dhan waana la yaaban yahay sababta oo la yaaban yahay waxa weeye ma jiro Soomaaliya waxa isu keenay dad isu keenan Soomaalidu waa isku af waa isku diin waa isku madhab kulli waa madhab Imaam Shaafici ma qabno khilaafaadkan muslimiinta iyagana Ilaahay heshiisiye sunna iyo shiica iyo ma qabno afaf kala gadisan ma qabno marka Soomaali dad wada dhashay ayaan nahay riyaadadana waxay ka mid tahay dadkii Soomaali isu keenay waxaan idin rajaynayaa nimankiina dhalinyarada ah in aad noqotaan dadkii mustaqbalka Soomaaliya dhismihiisa ka qayb gali lahaa Ilaahay ha idin barakeeyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا يا ما سنتهي بروفيسور توغاني haddana waxaan ku wareejinayaa deeq iyo calamuudey oo kamid ah committee-ga organize gareynaya barnaamijkan caawa organization-kana kamid ah inay 5 minutes aan siinayna inay guud maraan sharciyada oo la siiyay kooxaha iyo foomoonkii wixii dhan I think inaa wada haysataan sanadkan sanadihii hore waa ka bedelan yihiin each and every player form baa la siinayaa foomkaas waxaa laga codsanayaa inuu soo buuxiyo marka deeq iyo waxaan kusoo dhaweynayaa iyo calamuudda inay noo dulmaraan sharciyada kooxaha qodobka koowaad horta waxaan siinay dadka hadda jooga waa 7 koox waxaan dulmarayaa macnaa 12 koox ayaa ka qayb galayso tartanka oo aysan ku jirin 6 odayaal dadkii hore old people Toronto waxa weeye waa kooxda Safe Banaadir Hilaac Xidigaha Dixon Hamilton Kitchener Windsor Ottawa Rochester Ohio laba koox oo Ohio 12 kaas waxa waaye waa hal jiroona waa jirooniga kale saan idin sheegay odayaasha waa 6 ilmana waa jiraan under 15 ah marka kooxaha waxaan siinay maaragtay foomam oo shuruucda iyo waxa ay ku qoran yihiin sharciga koowaad waa inay yihiin kooxa Soomaali ah koox kasta waxay ka diiwaan gashan kartaa hal ciyaartooy oo ajnabi ah oo kaliya qodobka saddexaad koox kasta waxay soo diiwaan gashan kartaa 20 ciyaartooy iyo 2 gudi 4 koox kasta waa inay la timaadaa qalabkeeda ciyaareed sida funaanado isku nooca kuna qoran yihiin lambarka muuqda 5 marka ay koox kasta ciyaarayso waxay la soo xaadiraysaa ugu badnaan 20 ciyaartooy tababare iyo maamul 6 koox kasta waa inay diyaar ku tahay garoonka 30 daqiiqo ka hor bilowga ciyaartooyda iyaga oo soo gudbinaya magacyada 20 ciyaartooy ee maalintaas u safanaya ciyaarta
kuwaas oo ah kuwa diiwaanka ku jira. 7 kooxdii ka soo daado muddo 15 daqiiqo kadib bilowga ciyaarta si toos ah ayaa dhibaxa looga qaadayaa. 8 ciyaarta waxay dhaqan gali kartaa markii ay kooxda ka joogto ugu yaraan 7 ciyaartooy oo ah kuwa diiwaanka ku jira. 9 koox kasta waxay tartanka loo ogolaan karaa markii ay gudbiso magacyada ciyaartooyda iyo caddeyn oo leh sawir oo ah ciyaartooy kasta. 10 koox haddii ay ka maqnaato ciyaar sabab la'aan ciyaarta dambe ma ciyaari karto. 11 hal ciyaartooy iskama diiwaan geli karo 2 kooxood. 12 macalinka kooxdiisa wuxuu u ciyaari karaa haddii uu ka mid yahay 20 ciyaartooy oo diiwaanka ku jira. 13 macalinka kooxdiisa ma ah ee koox kale uma ciyaari karo mana u fadhiisan karo kaydka kooxda kale. waxaan jeclahay in aan odayaasha banalka noo fadhiyo barnaamijkan caawa inay maaragtay nala daadihiyaan. waxaa ugu horeeyo oo aan microphone soo dhaweynayaa macalin Tuke oo maaragtay odaygeeni ah si maaragtay asagana dhowr kalmood ugu yiraahdo barnaamijkan caawa sugu nimid oo qorituurka. macalin Tuke ku soo dhaw. halkan caawa waxaan u joognaa xafladda sharafta leh oo isugu imaadeen ciyaartooy iyo madax iyo maamul oo dhan in lagu xuso 25 guuleegii Somali Week iyo in lagu sameeyo qorituurka ciyaaraha ayaan u joognaa. waxaan rajaynaynaa inay horumarinaynaa aan ku soo dhaweynaynaa walaalkay Salaad Shiino soo dhaw. habeen wanaagsan dhammaantiin waan idin salaamay khaasatan odayaasha dhalinyarada iyo tababarayaasha meesha iskugu yimi dhammaantiin waan idin salaamay. waxaan salaan gaara haddana aan rabaa inaan u jeediyo dhalinyarta markasta u taagan qabanqaabada xafladaha noocaana oo kale ah iyo ciyaaraha sida Master Oday, Ganey, Ali Baashi, Faris dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inaan ciyaarta noogu dhammaato si wanaagsan ayna noogu bilaabato si wanaagsan ayna noogu dhammaato si wanaagsan. waa mahadsantihiin. odayaasha ayaan u gudbayaa haddana waxaan siinayaa fursad adeer Maxamed Faarax oo asagana mar dhow Soomaaliya noogu yimid caawana halkan nala fadhiya ayaan waxaan siinayaa fursad inuu kaga hadlo barnaamijkan caawa aan iskugu nimid haddii ilaa yiraahdo. adeer Maxamed ku soo dhaw. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa farxad weynii ah caawa inaan ka soo qayb galo xafladan oo ah 25 guuradii ka soo wareegtay markii la asaasay ciyaartooyda ay banaadir lagu asaasay inay tartamo sameeyaan. haddaba waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqoto tartankaanu mid guul gaara. waxaa iga dardaarana maadaama anigu garsoore aan ahaa jiray in ciyaartooyda waxaan u jeclaa ninka garsooraha daba orda ama la hadla ninkaasaan u jeclaa anigu inaan ama cagaar red siiyo ama maaragtay yellow siiyo. marka waxaan leeyahay marka aad aragto ciyaartooy garsoore daba ordayana waxa weeye waa ninay ciyaarta ka dhamaatay ciyaarta ka dhamaatay oo waxba tari maayo. laakiin ninkii tartanku ku fiican oo maaragtay qaba alminta fiican garsoore la hadli maayo sida marka waxaan rajaynayaa insha Allah ciyaartooyda sida loo sheegay ciyaartooyda meesha waxa ku jira waxa waaye isbarasho. annaga dadkeennii xagga Soomaaliya ka yimid sidaan isku baranay haddana waa inay maaragtay dadka ilmaha yaryarka oo gobollada ka imaanaya inay isbartaan inay is soo dhaweeyaan
hadda waxaa faa'iido weyn noo ah annaga magaalo kasta oo North America aan tagno hal ciyaartooy oo hore hadduu joogo meel kale aadi maysid asaga ku soo dhaweynaya asaga marka waxa weeye arrin aad iyo aad waxaan xusuustaa runtii haddaan idinka sheekeeyo gabaraan oo la guursanay magaalada Mareykanka kamid ah dadkii ka soo qayb galay waxay ahaayeen ciyaartooydii hore wax dad aan aqaano iyo ma ka aqoon meesha magaalada dad laakiin ciyaartooydii hore ayaa soo aruurisay ayaga dhigay xafladii marka waxa weeye arrintaas waxay u gaartay in ciyaartooydu ay aad isku kalsoon yihiin ay isjecel yihiin marka hadda sanadkan aad iyo aad waxaan isleeyahay waa sanadkii ugu fiicnaa sanad guuradan insha Allah khayran rajayna insha Allah أنا محمد فارح عادي يا أم حسن تاي مركب أقول رئيسو رالي نجا هذا وقتها أو معركتي وقتها عن سوق قرني قفل بنا إن شاء الله وحنقول ذلنا إنه برنامج كان ونوفو هذا وحن آدي وما دعلنا انتنا ماشى تمد مرلبات وحاسيجار يا ربا إن معركتي أمهات عليو isku imaadkan sportska aan isku nimid caawa waxaan la joogo walaalkeen Cabdibaari aan la joogo Maxamed Axmed kan fadhiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Cabdibaari caawa inuu yimaado Dr. Yusuf Shaqaaq Saciid magacyada hadaan bilaabo waa la wada iloobaya dhamaantiin laakiin waxaan ugu dambeysay Cabdibaari muddo badan waxaan rabaa Mike-na hadda ku soo dhaweeyo Macallin Muuse asagana halkan nala fadhiya إنه أسجنا برنامج كان قيبتي سوق قاعد مع الموسيقى سولو. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتين وسلامتين آذن وقفر حسنا إن كسوق قيب قال عاوة حفلة دان قرطور كذي وحاربا إن هذه الشيء هرت محمد فارح أنتو الشيء وحن قدرة waxaan u badannahay jiimamka yaryar aan ku ciyaarno banaanka aan ku ciyaarno odayaal dhalinyaro waayeel kulli waxa loo badan yahay qof waliba waa garsoore isla asagiya waxaana ciyaartooy adduunkana kama dhacdo garsoore ina tahay ciyaartooyna aan noqotid laba shaqo kala duwan waay ama ciyaartooy noqo ama garsoore noqo sharciga hadduu qof haayo u dhaafa taaseti waa mid dardaaran iga ah midda kale ciyaartan rasmi ahaan waxaa lagu daray ciyaaraha fudud waa sidaa ogsoontihiin waa foundationka ciyaaraha idil adduunka waa hooyadii ciyaarahoo dhan yaa ka qayb gali doono waay registration la samayn doonaa ciyaaraha 5 maalmood oo centennial lagu ciyaari doono ciyaaraha fududna way barbar socon doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa ka qayb galayo dhalinyarada kubadda cagta ciyaarayso kuwa yaryaraan ka hadlaa waxaa ka qayb galayo odayaasha madaxda naadiyada qof kastoo wax isku haayo oo raba inuu ama orod ka qayb galo ama bootin ka qayb galo Maxamed Faarax wuxuu ahaa dadkii 60meedii horaanteedii boodada sare ku jiray iyo boodada hoose waxaan malaynaa markaana uu ka qayb gali doona ama garsooro noqon doona oo dhamaantiin aad wada taqaanaan oo legend sports caawana nasiib wanaag aan u yeelanay inuu barnaamijka nagala soo qayb galo Cabdirasaaq ku soo dhawo bismillahir rahmaanir rahiim orto waxa sharaf weyn ah inaan caawa xaadir ka ahay rubع qarni لما ملها يا عيارها ترنت لو قبط ربع قرن وحاوي وقرن وبقول سندودوي شل لا تسن عيار ما waxaan rabaa inaad ila soo dhaweystaan ragii 25 kaas shaqeynay inay ila soo dhaweystaan wax sahlan maaha waa maadsantiin waxaan u leeyahay waa maadsantiin waxay tahay waa ku faanaa shaqada ma qabanno waan ku faanaa marka meelaha tagno aan reer Toronto waxaan leeyahay warqoladii waxaan la ciyaaraha xagga ma jiro maxaa tiradinku marka
mar labaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in aad isleedihiin waxbaa idinka dhiman ama khilaaf baa jira, laakiin ma malayn kartaan waxa aad qabateen 25 sano gacanka 22 sano maamulahay murankiisana waa badnaa. 25 sano dad masaakiina oo qaxootiya oo carruurtoodii la nool oo dhib kala haysto oo 25 sano tabaruc ku waday cayaarahaas. waxaan idin leeyahay war noolaada. waxaana leeyahay ku faana haddaan reer Toronto nahay ama reer Canada waa ku faanaynaa insha allah. qabanqaabadana quruxdeeda oo aragtaan haddaan dadkaan aysan jir lahayn caawa ma waan wada joognayn. rag waa hore igu dambaysaa meesha jooga. maxamed ismaaciil baan maqlaynay. waxaanse rabaa runtii wax kasta spirit bay leeyihiin, spirit bay leeyihiin. waxaa aada ii soo jiitay spiritka cabdiraxmaan inuu maanta nagala soo qayb galo halka. waxaan kaloo hoos loo jooga waa isna aada u qaybo badan aad taqaanaan oo meesha soo fuuli waayey cumar ganjab. waxaan kaloo habeen saddexaad maraan la hadlay ma ayaan dhaweyt maraan la hadlay axmed cabaas adi oodi soo salaamay. xuseen ismaaciil waa dhintay allahu naxariisto. rag badan baa naga dhintay laakiin ragga ayagoo saas cabdiraxmaan waxaan xasuustaa arab gobolka banaadir macallin u ah wuxuu ahaa nabardiishiyo wuxuu ahaa runtii markuu cayaarahay aad baan u jeclaan jiray. maantana waa kan physically waxaa laga yaabaa in ilaahay naga qaado laakiin qalbigii iyo ruuxaantii waa nala joogtaa. waxaan leeyahay allah caafiyo raggaas. annaga abaal baanu lagu leeyahay rag baa abaal nagu lahaa oo na gashaday. macallin muuse ku jira, charles baa ku jiray, raggii hore oo sportiga waa badbaado. marka hore wuxuu badbaadiyaa dhalinyarada wax ka xoog badan, energy badan bay hayaan. haddaan energygaas loo leexin meel ay ku lumiyaan ayagaa waxay ku leexanahayaan meel kale oo dhib badan oo xarig iyo dhibaato u keena. war annaga marka abaal baa nala gashaday, adinkuna kolle abaal baad gashateen dadka. war kuwa hadda la gelinahayaan waxaan rabaa markii waa qor isku dhiibe inaad meesha ka wadaan. hal midna waa idinkala dardaarmahayaan. shaqadu waa socotaa, qofkii haraha la wato yaan loo caroon. khilaafka waxaa looga bixi karaa shaqo dheeraada iyo sabar. haddii tiinna ay qurxoonaato midda kale waa laga soo tegaya. hadduu sabarkeenna bato waxaa waaye midnimada halkaasi ka bilaabanaysaa. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga. mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ragga aniga ila midka ahaayo ama iga yaryaraa waraa cayaari jira cabdiraxmaan iyo xanuunsan in ilaahay caafi. annagan ilaahay noo kala dheereeyo. waxyaabo aan ku jirin baa jira hadda aan dhagteedu ay maqlaysay dhallinyarada iyo maamulada iyo aan u sheegahay. war waxaan isugu imaanayna waa cayaaro, dembi ma imaan karo. ninka aan hadda controlkin dembigiisow ama cara ay ka adkaanayso waxaan la dirirayna waa caradii haddaba iska joog oo ka harmaysa. waxaa weeye midnimadayada cayaarta waxay ku dhammaanaysaa, qurux bay ku dhammaanaysaa. ilaahay idankiisa ha loo sabro. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cabdirasaaq xuseen geedi aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. inta aanan dhowr qofood oo halkan fadhisa aanan u yeerin oo halkan maaragtay iga soo horjeeda, waxaan ugu dambeyntii banalka halkan ugu yeerayaa Siciid Faarax Ducaale oo asagana caawa halkan nala fadhiya si uu maaragtay ugu soo qaybgala barnaamijka. Siciid kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan martida ka soo qayb gashay xafladan oo ah qori istuurkii iyo Somali Week ay qaban qaabisay ururka Today aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo idin la qaybsado xafladan iyo diyaar garowgeeda mid kale waxaan aad ugu faraxsanahay in aan podiumka ama microphone-ka aan la qaybsado dad badan oo maaragtay legend ah oo ugu horeeyay macallin Tuke macallin Muuse adeer maxaan faarax 1956 the first basketball player in Somalia hadda dad badan aan ogeyn taas warankan waa tuuri jiray he was multi talented iyo aan miiloobiyo saaxiibkay ayaa Cabdirasaaq iyo akhyaarta badan oo maaragtay meeshan ka soo wada qayb gashay Today mar labaad oo baare macalinka dhamaayo qaranka oo tenniska bing bong and عاتو أمين تعبان عبد الرحمن وسلامة يا أسماء ولكن تربي أنت كبعدي وحاربا إن عن مربات عنو همبليه مرسد حاد عنو همبليه Today يشغل وين قبتين لبعتين إيشان سنسيد ولكن عبد الساق والشغلات إيشان سن إلا ما عملوا عياره دعي جولاي أمام كلها دعي آدي ماركتي وحدك وي أو ماركتي aan fududeen lacag in la aruuriyo marka dadna ay ka soo qayb galaan it's not something igu soo orday ma dadkii u soo dhabar adeegay iyo intii ka soo shaqeysay 25 sano haddana wili qaarkood intay ka buuxaan ururka Today waxaan leeyahay hambaliyo waanan maaragtay ka soo qayb galina insha Allah sharaf weyn inoo tahay maaragtay inaan ka soo qayb galno anigoo ku hadlay magaca kubadda koleyga Cabdirasaaq waa igu horeeyay laakiin ma sheegin taas marka insha Allah waa ka soo qayb galayna taas haddii aan fursadan ka faa'iideysto oo ah ayaamaan waxaa jirta waxyaabo oo critical ah oo laga yaabo inay dadka rabaan inay ogaadaan ku saabsan xagga kubadda koleyga shir ayaa ka dhacay Soomaaliya 21 bishan May taasoo aan aniga oo ahaa xoogyaha xiriirka Soomaaliyeed liigu yiri waa laga qaaday xilkii aad u haysay xiriirka Soomaaliyeed kubadda koleyga taas marrab inaan sii guda galo sababtoo ah Soomaalida waxay tiraahdaa war dawladeed warqadaas ku yaala soo ilaa hadda warqad ma helin aniga aan maaragtay ku yaala laakiin idaacadahan ka arkay sida adinka u maqasheen aan u maqlay marka ilaa warka dawladeed oo yimaado one challenge that ma kor dhacayo laakiin xiriirka Soomaalida kubadda koleyga sanadihii ugu dambeysay waxaan filayaa inuu aad u shaqeeyay waxa uu ka qayb qaatay ilaa 3 international tournaments oo ka qayb galnay mar gabdha la geeyay qadar mar laba mar wiilal international arena aan geeyay oo Soomaaliya ay ka qayb gashay taas oo inteeda badan qabanqaabada ay ku lahayd reer Toronto North America laga qabanqaabinay dhalinyarada intooda badanna aan ka wadaynay maaragtay North America in fact ama dhigi kari kubadda koleyga meel xun u jooga laakiin hadda meel fiican u jooga insha Allah we will waa umaleynaa maaragtay inaad meeshaas oo ka sii qoon doono oo ka sii socon doono oo ka shaqeyn doono intii aan xiriirka joogay waxaa jirta international congresses ama international meetings ka aan ka qayb galnay weli kama aysan baaqan Soomaaliya calankeeda meel oo adduunka oo kaga shiraayo kubadda koleyga waa si walba ha ahaato dib walba ha maro ama dhaqaale xumo ha iska ahaato waxaan isku day jirnay in xiriirka Soomaaliyeed kubadda koleyga oo ka qayb qaato marka mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay Today guul baa idin rajaynayaa insha Allah waa wada joognaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Saciid waxaa dhammaanteen ciyaartoydii cuslaatay reer Toronto dadweynaha Soomaaliyeed reer Toronto wixii la markaa isku dardaro caawa one of my best friend ayaa dhinacayga fadhiya anoo aan waxba weydiin ayaa waxaan rabaa laba kelmadood inuu yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore caawa aad ayaan faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ciyaaraha 25 sano ee Today
oo lagu qabanayo meeshaan xafladan aad iyo aad u qiimo badan anoo maanta xaflad downtownka kule wiilkeyga oo lahaa aan soo cararay haweenka soo dhacay inta imid marka good thing inaan ka soo qayb galay second odayaasha qiimaha qaayaa leh aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay garabkooda joogo dad iga magac weyn ay joogaan oo meeshaas fadhiyaan laakiin ayagana waxa waaye ayagoo joogaan oo kala waaye sida Mukhtaar Cabdullaahi Yuusuf rag iyo odayaashii hore ila bilaabeen ciyaarahan macnaheedu oo hadda 25 sano gaaray marka haddaan sooska ahaan jirnay maanta today aan nahay marka today la jirta hal ogaado waana mahadsantiin guul anigana waxaan u sheegay ingiriiskan ka yimid hadda marka ingiriiskan waa deganahay dhalinyaro badan ayaa imaanaysa marti badan Sweden meel walba noo laga imaanayo marka inaan si fiican soo dhaweeyno ayaga waan soo dhaweeyaan marka inaan kulligeen hal meel ka soo jeesano waaye marka waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdirabbi aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay laba qofood ka bacdi insha allah barnaamijkeenan gelaynaa ka bacdi waxaan u gudbinaynaa in oo guddoomiyaha iyo cabdaadan ay barnaamijka noo soo gabagabeeyaan waxaan u yeerayaa oo aan idin barayaa oo qaarkiin aadan aqoonin ex player ciyaartooyda cuslaatay Serie A-da ahayd inta kale waa wada taqaaniin legends kale inta fadhiin kulligiin waa wada taqaaniin waxaa laga yaabaa inaan magacii sheegi doono inaan qaarkiin aadan aqoonin nuur macalin ayaa caawana la jooga halkan waxaan rabaa inuu soo istaago oo asagana laba kalmad uu ka yiraahdo halkan nuur Soomaalidu waxay tiraahdaa ma hadhin hadal la yiraahdo macni waa lagu kala tagay wax walba la dhameeyay aniga sax xasuus bay ii tahay markii aan ciyaaraha sheegi jiray weerihii aan oran jiray oo iyagu qudhoodu ii muuqdo dadkii siidhiga hayn jiray inay halkan wajiyadayda soo fadhiyaan anigoo timahaygu aad moodo nin 22 jir ah ayaan maantana nasiibkayga aan dad Soomaaliyeed oo ciyaaraha jecel aan noqday inaan isa soo hortaago sportsku waxa weeye waxyaabaha lagu qiyaaso dhakhtarada aan xuduudka lahayn qofka sportska cid u meeleeya waa qof wax kale u jeed leh ee ciyaar ma wada ciyaarna rag iyo dumarba haya miduna isniraano waxa jira oo kale oo iga soo horbaxay sanadan sheegay waqtigiisa aw baarana agtayda joogo dalka Shiinaha mar aanu ciyaaro u tagnay Big Bonta oo dalka Ethiopia aanu wada ciyaaraynay oo la nasigay in aan ninka awbaar ee caloolbur maanta ah run ahaantii u soo riday calankii waqtigaasi oo ahaa nin ciyaaryahan aan gabagabeeyo hadal badan haaba ma buuxshay waxaan u rajaynayaa ciyaaryahanada Soomaaliyeed rag iyo dumarba ee bilaabaya sanad guuradii 25aad ciyaarihii qabanqaabadooda halkan lagu qabtay waa intaynu dalka joognay inaad ku guuleysataan guul iyo nabadna ay ku dhamaato waxa kale oo aan ku bogaadinayaa dadka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dhiirigelinta ciyaaryahanada dadka dhalinyarta ah ee Soomaaliyeed ee iyaguna ku barbaaray halkan oo u baahan inaynu tusno mar walba inaanu nahay dad Soomaaliyeed oo ciyaaryahan ah كنحو نفتواه عياره بلابمه سند قردي شني اللباتنات نقده شني اللباتك بيش أساس عتلة بلو تقدر يان لقاه ريبسن كل يعني كأوجه الرئي حاسك يقولوا ويقول حق الدونا الله لا هاي نوعاته هل كان قرنا يني قرون كيو أنت نخرج شاسك ويل كينا عند دهين دلنياردا سعي مركزي يقولون وقلت الله صدان عيار الله دتوره كبد ماذا حسيك تاج ما يمرك تبي هلو عيارها نبضي وما تدي أنا المناسبة ده كسوق يبقى لبس ساعة عدد 106 ساعة عدد كهر أيام وحن هلاي تكست مسج اللي يصدره واليوش يجايو أنا كسوق يبقى له مركا ولا سعجري لكن وقت يلا عندهم بق وأسرع صلاة أو محوها علاسك لو كسي درسومي حتى وحان مارتي معلن موسى iyo kooxaheena cuslaaday aan dheeri jirnay indoor waa ninkan Yusuf maxuu ahaayeen waa fiicneen markaas laakiin
dhalinyaradii naga dambeysay ayaa waxay nala dheeleen dheeshii oo cusbeed marka annaguna tii horaan wadanay waxaa bilaabatay mar haddii xoogaa farsameer ay ka hoos baxdo in lugaha la iska qaado marka waa taas ugu haray taas waa muxuu ahaa midda kaleetood ciyaarahan horta hore muxuu ahaa 25 sano la soo haayay waa la socday marar badanna waa ka soo qayb galay si temporary ah hase ahaatee muxuu ahaa horta rag culculus oo aad juhdi weyn u geliyay waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo oo mar walbana wax kale looma sameyn karo laakiin la xuso magacyadooda meel walbana lagu xuso loona mahad celiyo muxuu ahaa macallin Muuse waa ka mid wuxuu ahaa mar walba dadka juhdiga geliya oo ka qayb gala meel walba ay ka jirto macallin Duka sidoo kale muxuu ahaa maxamed faarax أو بار محوها محل هذا باشي على باشي يوسف شغاق عنتر ما عبد آذن محوها برونو وأن كواس اسكو كوحة أنا هاجرني عثمان برونو يو محوها يو عبد آذن مركا ورت برشا وناكسن اللي يرى هالكا waxaan u yeeray cabdiqali waliya Tyson macalinka weyn oo barnaamijkan caawa nagala soo qayb galay inuu asagana halkan on rabaa wax yar inaan meesha ka taabto anoo ku hadlaya magaca kambaniga Hudhud oo run ahaantii qorshooyin badan oo aan sportiga ugu talagalnay oo aan xoogga saarnay ilmaha yaryarka ah oo aan odayaashu u sheegayno odayaasha sidaad ula socotiin in aan annagu sponsornay 6 team oo ilmaha yararka ugu yaraan 700 oo cunug 800 oo cunug Soomaaliyeed ay ku jirto waa ka dheeraa jirnay banooniyadan waaweyn iyo today iyo qolooyinkii kale oo isaystay laakiin odayaal baan nahanoo go'aan waxaan hadda ku gaarnay qoladii Soomaali wax u qabanaysa inaan la qabanno annagu oon ummadda sideedaba wax qabadkeeda aan ka hadal farfar ku taagna aysan aanan loo baahnayn ummadda dhinaceedii badneed iyo intii odayaasheeda recognize-ka ahayd oo dhan ay halkaan soo jiraan annagu inaan diyaar u nahay in aan wax la qabanno oo aan la taagano taas waa magacii kambaniga iyo macnihiisa dad badan oo Soomaali oo banaanka aadana in aan contribution-keena ku darnay oon halkaan ka samayno taas waa tii kambaniga midaydii kaleeto oon aniga run ahaantii arrintaan iiga muuqneed waxaan uga jeedaa halkaan rag fara badan oo run ahaantii maalin dhaweedna laygu yiri aniga rag fara badan ay igu yiraahdeen war garoonka barooniga mataqaanada adigu magaalada Ceelbuur leeyahay ka timi marka guddiga intaan today iyo waxaan arkay saaxiibo is yaqaana kaliya inay isu yeertaan laakiin rag fara badan oo lagdanta iyo maaragtay orodka iyo maaragtay darbada iyo kuwada fiican inay magaalada qaarkeed ku qarsan yihiin intaasna waa afraydeedii ka jakaa تكلا إن شاء الله تعالى ترى من تيجان بالله ويسا وكسو قبل قلي دونا أنا كمريهان وأتاجرناي حوجهان وأتاجرناي وعي سبورة نوجب هنتين وأتاجرناي وعي مركتي فكرة أو عربتين وأتاجرناي وعي حوجنا وعدين هينا إن شاء الله تعالى إن أي خير كبلا وتغير نكون مات